وحوي وخلط حولي ولا تفيرقينيا هذه أدبر لو تفيرقينيا أنا داريا وانو أرقنا وانو قلا marka la dooxun baanu aragnaa Soomaali hadaan nahayna xanuun baa wax furanahay dawlad waxba ku malihin sanadada dambe magarasa cimilada kulaatay iyo waxaan ku dhigay isbedelka cimilada iyo roob yaraantan xoolihii abaar fara badan laayeen xooluhu waa laf dhabarta nololeed ama dhaqaale ee bulshada Soomaaliland iyo guud ahaanba Soomaalida miyi iyo magaalo ninbasi ayuu uga munaafacaadsadaa xoolaha taa macnaheedu xoolo la'aan waa nolol la'aan laakiin sanadadii ugu dambeeyay abaaraha soo noqnoqday ee ka dhashay isbedelka cimilada iyo gowraca aaranka daayirta xoolaha ayaa saameyn ku yeeshay taranka xoolaha inkastoo dawladda Soomaaliland ay amarro lagu hakinayo ka soo saartay qaliinka xoolaha dhaqmaadka ah halkani waa seelada xoolaha ee magaalada Gabiley bulshada ku sugan seelada ayaa ka warramay xaaladda xoolaha waxay sheegeen in sanadadii ugu dambeeyay uu xoolaha Soomaaliland saameyn ku hayo qaliinka ama gowraca lagu sameeyo xoolaha dhaqmaadka galaya riman ee la qarayo dhibaato weyn bay leeyihiin waa inay dawladda Soomaaliland ka fiirsataa lama qali jirin berigii hore waxa weeye waa khalad xooli ولا تفيرقينيا هذه أدبر لو تفيرقينيا وعوي حولها إنه نقالينه وإنه إلاشنه أيا لو بهيه يا لو بهيه حوله با علمي لك صوتوريا هل كسور أبوك قريا سيدا هل جوانتو سيلدا يدك وحيب سدا يوح يبين يكو وحيب شا يكو حقربا حولها أيب سنيان وإني وحي عن رضو مقطوعة لا غيا إيرهمن وإني gowricin hadii ay gowracaan oo lagu qabto sharciga waa in la tiif waxa soo jeedinaya arrinka xoolaha maxaa radaa riman ee la qadayo arrinka aad loo adkeeyo hal la adkeeyo maxaa hal joojo maxaa yeelay xooluhu halka way yeelanayaan way dabar go'ayaan waan idinku raacsanahay in la ilaaliyo loona soo wada jeedo nin waliba halkiisa maxaan ku radaa aad iyo aad uga soo jeedo oo kuwa maxaa wada iibsanaya agtayada lagu qabo oo la ganaaxo sidaas aan nagu leenahay sidii xooluhu deyn lahaayeen Soomaali hadaan nahayna xanuun baa wax furanahay dawlad waxba ku malihin dargigii hore soo garanaysi waxa weeye xerada ariga lagu xereynaya Soomaaliya minashibiya iyo joogasay iyo boolis ka geela iyo looda boolis iyo minashibiya joogasay seylada cidimay tagi jirin halkaas waxa laga qabanaya ariga ninka xeradiisa ka soo saaraya ha naga daayo anagu maba naqaano waa la noo xidhaa waa la noo keenaa ari dhalaya waanu aragnaa waanu qalaa marka la dooxun baanu aragnaa laakiin ninka soo xidhaya xeradiisa neefkarnimo ka soo saaraya ha naga daayo la soo iibiyo ee gagada la keeno hadaan hiliblanayaan ka kaxaysana gagada waanu qalana waayo lacag baan siisanaa halkaan laga reebi karo halkaan laakiin hadii laga reebo gagada waanu ka tagi karnaa laakiin markaanu lacag siisanaan geeyna halkii aan ku qalanay ma daynano laakiin dadka xoolaha keenaya iyo dilaalka iibinaya kuwa iska ilaaliyaan anagu markaan iibsano halka ugu soo baxna arsaaq dhinaca kale waxa halkan oo ah seelada xoolaha ee magaalada Gabiley ku sugan mas'uuliyiinta iyo shaqaalaha wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga Dr. Ali Bashir isku duwaha wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga ee gobolka Gabiley ayaa sheegay in seelada xoolaha ay u joogaan in xoolo dhaqatada dilaalinta iyo ganacsatada hilibka ay ku wacyigeliyaan joojinta qowraca xoolaha dhaqmaadka ah sida uu hadalka u dhigay isagoo sidoo kalena bulshada uga digay gowraca xoolaha dhidiga ah ee daayirta dhaqmaadka galaya waxaan halkan u joognaa saan bulshada reer Soomaaliland ama gaar ahaan gobolka Gabiley gaar ahaan degmadiisa Gabiley aan uga wacyigelinayn ama uga qaban lahayn xoolaha dhaqmaadka ah ee la iibinayo iyo guud ahaan xoolaha deeselada yimaadaba wixii aan ku aragnay ka soo baxay xanuuna gaar ahaan xoolaha dhidiga ayaan halkan ku kantaroolaa maadaama aanu kawaanka ana joogno oo habeenkii dadka ka eegno hilibka ama xoolaha la qalayo sidoo kalena halkan waxa la keenaa ku riman iyo ku aan rimayn labadaba muddadii aanu ka shaqeynay magarasa ama meat hygiene and quality assurance waxa la dhahaa aan ka shaqeynay taas macnaheedu yahay magarasa si kor loo qaad lahaa caafimaadka hilibka dadka cunayaan in halkan la keeno neef caafimaad qaba taasi waa kow waxa kale oo jiraan halkan aad iyo aad magarasa ugu kantaroolaa xoolaha la qalayo ee riman neefka riman ee magarasa laga soo riday uurku jirta ku jirta ama neefka riman in la qalo taasaan ku kantaroolaa
oo in la dhaqo si aan xoolaheennii u dabargoyn aad iyo aad ba horta bulshadu aan ugu wadna intaa wacyigelin inkastoo weli dee ayna dadku bulshadu magarasa weli u tababarnayn dhaqmaad si xoolaheennu tarankiisa u sii jiro waxaad moodaa xoolaha maadaama abaaro fara badan jiraan oo sanadada dambe magarasa cimilada kulaatay iyo waxaan ku dhahay isbeddelkan cimilada iyo roob yaraantan ay xoolihii abaaro fara badan laayeen haddana waxaa kale oo jira iyaduna magarasa maadaama populationka dadkeennu korayaan kawaanada qalliinka oo ah meelaha ugu badan ee lagu qalo xoolaha dhiddiga ah ee riman islamarkaasina lagaga soo tuuro uurkujirta iskuduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga ee gobolka Gabiley ayaa sidoo kale sheegay in wasaaradda xanaanada xooluhu ay kawaanka kaga joojiso xoolaha ku jira xilliga rimayga kuwaasi oo ay qalayaan ganacsatada hilibka ee ku sugan kawaanadu aad iyo aad baad u mahadsantihiin oo nagu soo boqoteen xilligan oo waxaan ku dhahay tahay 3 iyo dheeraad waxaan ku dhahay shaqadii jirnay kawaanka waxaanu had jeer habeenkii ka eegnaa waxaan ku dhahay habeen kasta halkaan u nimaadna xoolaha caafimaadka la qalayo caafimaadkooda inaan habeen kasta eegno dumarka iyo waxaan ku dhahay dadka xoolaha ka shaqeeyana habeen kasta waxaan ku 12 ilaa 4 inta u dhaxaysa ku hawleyn qalitaanka xoolaha markaan sadarteeda waxaan eegnaa xoolaha lagu qalayo marka intayna iman kawaanka ka hor neefku intuu nool yahay ayaan qalinka lagu sameeyna caafimaadkiisa eegnaa marka la qalana postmortem examination baan sameeynaa sadarteed habeen kasta waxaanu heegan u jirnaa inay hilib caafimaad qabaan bulshadeenu cunto hadii la dhaa Sakariya Nuux Ibrahim telefishinka CBA gobolka Gabiley